wasiirka wasaaradda macdanta ee tamarta Soomaaliland Injineer Xuseen Cabdi Ducaale oo kamid ahaa wasiirada ku sugan magaalada Burco ayaa saaka ka codeeyay xarunta sabada gabooyay magaalada Burco. Wasiir Xuseen Cabdi Ducaale ayaa bulshada ku dhaqan Soomaaliland ugu baaqay inay codkooda u dhiibtaan si nabadgelyo isagoo sidoo kalena ka waramay qiimaha ay doorashadan ugu fadhido bulshada ku dhaqan Soomaaliland. Wallahi Socday si habsami ah ay u socotaa codeyntu aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqday codeyntii murashaxnimada madaxweynaha mustaqbalka runtii waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo intii imika aan agagaarka moogtay arkay magaalada soo dhaxmariyay si aad iyo aad u qurux badan ay u socotaa waxa runtii muxuu ahaayay bogaadin iyo muxuu ahaayay tahniyad leh muxuu ahaayay amaanba shacabka Soomaaliland oo maalinkan maanta si habsami ah ololihii wax dhibaato aan uga iman oo u soo dhamaadeen iyadoo amni lagu sugay yahay aad iyo aad baan runtii ugu tahaniideynaya ugu bogaadinaya waxaan kaloo runtii muxuu ahaayay aad iyo aad u amaanaya amaan weyn halka uga fidinaya muxuu commissionka doorashooyinka qaranka oo xilkooda runtii si fiican uga soo baxay si fiican u gutay oo qaranka soo gaarsiiyay muxuu ahaayay doorasho si qurux badan oo teknolojiyada ugu dambeeyay adduunka lagu isticmaalayo bulshooyinka mugtiban lagu isticmaalayo insha Allah ta'ala si amniya oo xasilooni inoogu dhamaan doonta waxaan kaloo runtii aan amaanaya oo aan bogaadin halka uga diraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Axmed Siilay iyo dawladdiisa oo suurta gelisay in uu dalka ka dhaco muxuu ahaayay doorasho loo diyaar gareeyo waajibaadkii iyo xilkii dawladda ka soo baxay taana runtii waan ku tahniideynaya komishanka doorashooyinka qaranka oo runtii si qurux badan oo habsamiya maalinka maanta qalabka u soo agaasimay safiirka Soomaaliland u fadhiya wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa isaguna ka codeeyay xarunta Sooyaal ee magaalada Burco waxaana uu safiirku bulshada gobolka Togdheer ugu baaqay in la ilaaliyo nabadgelyada isla markaana ay si degan bulshada gobolka Togdheer codkooda u dhiibtaan runtii wax lagu farxaa maanta in dalkeena ka dhacayso doorashadii loogu codeynayay madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland alxamdulillah si nabadgelyada ay socotaa annagu waxaan joognaa maanta magaalada Burco gobolka Togdheer waxaan halkan u nimi oo ahayd goobtii aan anigu markii horena iska register gareeyay marka saaka waxaan ku codeynay xarunta Sooyaal si nabadgelyada dadku u codeynayeen runtiina Ilaahay waxaan ka baryaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa in ay noogu dhamaato si nabadgelyo leh oo sida habsamada la imka u socoto ay ku socoto doorashadu waa xuquuq uu helay muwaadinku oo dastuurkiina siinayo Khaliil Barawran TV qaranka Soomaaliland magaalada Burco.